gudoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee degmadaasi Barre Carab Cabdilaahi ayaa soo dhaweeyay xogayaha cusub waxaana uu sheegay in guddidaasi ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha nabadgelyada iyo kuwa kale intaba xogayaha guddiga nabadgelyada oo imika dardar cusub insha Allah soo bilaabay si wanaagsanna aanu markii hore hawsha u wadnay nabadgelyada imika aan doonayno inaan inta ka sii kordhino oo si fiican aanu xiriir fiican wada yeelano wada shaqayno Cabdilaahi oo Ciise gudoomiye ku xigeenka guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee degmada 26 Juun ayaa isaguna ka sheekeeyay waxqabadka guddidaasi iyo wada shaqaynta dhow ee ka dhaxayn doonto xogayahan cusub qaabnay inaan shaqada qabanno la shaqayno xogayaha cusub runtii cid ka horeysay oo guddiga nabadgelyada xaafadda ah oo arrintan oo timid ama nagu baraarujisay ama nagala shaqeeyay tii hore oo maanaan arag taas waxay ku tusinaysaa firfircoonida iyo kartida iyo dadaalka uu leeyahay xogayaha cusub ugu dambeyntiina xogayaha cusub ee guddiga nabadgelyada ee dawladda hoose u soo magacowday degmada 26 Juun Guuleed Maxamed Yuusuf ayaa isaguna ka warramay kulankani maanta ay yeesheen isagoo maayirka iyo maayir ku xigeenka uga mahad celiyay guddiyada ay u sameeyeen degmooyinka magaalada oo ku tilmaamay inay wax weyn ka tari doonaan dhinaca nabadgelyada waxaan halkaa kala hadlayay in ay nabadgelyada sal uga wada shaqayn lahayn aanu nabadgelyada si kaashan lahayn iyaguna sii shaqayn jiray xaafadana aad uga shaqayn jiray inaan annaga gacan isaaraan saarno dabada aan wada shaqeyno nabadgelyada aan sii xoojino xaafadda nabadgelyadeedana sii adkayno aniga u mahadnaqaya maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo agaasimaha nabadgelyada iyo agaasimaha nabadgelyada iyo debdemiska